السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وان إذن سلامي دمان أصحابتك كحران كانال كان أسد ميديا برو. إن شاء الله موقال كان وحاولا تعلقا موقال كهورا يعني دين سو قد بيه موقال كاست أو أها أفر أركتيدود كامل سنتهي ددك أتقانيد بس موقال كان مانتا أيان نقون دونا أفر أركتيدود كامل سنتهي نفأهان تادا فضلا داوا شوعا هنهي المام إناد موقال كاليك سارتيد دونيدن أينو كنول نهاي waxaa ku nool dad kala midab duwan kala dhaqan duwan kala af duwan sidoo kale kala diin duwan hadaba inaga oo kala qaadin dadkaasi waxay u qaybsamaan laba qaybood dad dunida wax ka qabsaday iyo dad kuwa dunida wax ka qabsaday u shaqeeya hadaba nafsad ahaantaada waxaad ka aaminsan tahay afartan ayaanan muuqaalkan kuula wadaagi doonaa ka koobaad waxa tahay qof dunida wax ka qabsan kara balse ma haysid wadadii aad wax ku qabsan lahayd taasi waxaan uga jeedaa waxaad rabtaa inaad guuleysatid balse ma haysid wadadii guusha ka labaad waxa tahay qof aan dunidaba wax ka qabsan waxaanad aaminsan tahay inaad dunida wax ka qabsatay kani waa ka ugu layaabka daran taasi waxaan uga jeedaa waxa tahay qof guul daraystay waxaanad u malaynaysaa inaad guuleysatay waxaanad ku jirtaa riyo waxaana ku leeyahay ka baxriyada oo bilo wax qabadka ka saddexaad waxa tahay qof dunida wax ka qabsan kara waxaanad haysaa wadadii aad wax ku qabsan lahayd waana ta ugu wacan lana raba inaad ahaatid waxaanan uga jeedaa waxa tahay qof raba inuu guuleysto waanad haysaa dhabadii guusha waxaana ku leeyahay hore u soco guushu way dhowdahay ka afraad waxa tahay qof dunida wax ka qabsaday balse ma haysid wadadii aad ku sii xoojin lahayd wax qabadkaagaasi waxaanan uga jeedaa waxa tahay qof guuleystay balse ma haysid dhabadii aad ku sii joogtayn lahayd guushaada hadaba haddii aad maanta ku nooshahay dunida kama baxaysid afartan mid ayuun baad ka mid tahay waxaana tahay afartan mid riya ku jira mid guuleystay iyo mid wadadii guusha haya iyo mid ka leexday dhabadii guusha intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta waxaan idin rajeynayaa insha Allah guul intaaynu ku kulmi doona muuqaalkan muuqaal la mid ah salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.